السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان bulshada Soomaaliyeed waxaan u rajeynayaa Ramadaan Kariim. Magacaygu waa Dr. Abuukar Yuusuf Warsame. Waxaan ahay macallin wax ka dhiga jaamacad ku taalla waddankan Sweden magaalada Stockholm. Jaamacaddaasoo la yiraahdo Royal Institute of Technology ama badanaaba sida loo soo gaabiyo ama loo yaqaan KTH. waxaan maanta oo taariikhdu tahay 2 bishii May 2020 aan jeclaystay inaan la wadaago bulshada Soomaaliyeed barnaamij yar oo halkan ku duubi doono oo ku saabsan difaaca badda Soomaaliyeed iyo doorka bulshada maadaama aan ka mid ahay bulshooyinka Soomaaliyeed siiba kuwooda xuquuqda iyo xaqa lagu leeyahay inay gudaan maadaama waxaan ku soo bartay canshuurtii hooyada Soomaaliyeed iyo aabbaha Soomaaliyeed. dacwadii waxaa ka dhiman muddo bil iyo dhowr casho ah oo loo balansan yahay diyaaladma 8 bisha June 2020 marka barnaamijkan ayaan isleeyahay bal qaybtaada doorka kaga qaado oo ku daymax waxaan ka afeef dhiganayaa 2 arrimood waa mid koowaad ma yihi sharci yaqaan mana yihiin cilmiga badaa wax ka bartay waaga aan la wadaagi doono waa nin tooxsi iyo dadaalkayga ayaan ku soo diyaariyay marka way dhici kartaa in khaladaad iyo inaan wax ka tago ama khaladaad aan ku talagalahayn aan la wadaago. midda labaad waa in barnaamijkan aan ugu talagelin haba yaraatee wax dhaliil ama taageero cid gooniya ama maamul gooniya ama dowlad hore ama mid hadda joogta marka insha Allah daawasho wacan waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan aad la wadaagi doontaan bulshada qaybaheeda kale aad xiriirka leedihiin. sida aan hore u sheegay ciwaanka barnaamijkaygu waa difaaca badda Soomaaliyeed iyo doorka bulshada kaga aadan. wuxuu ka koobnaan doonaa 3 qaybood haddii alla idmo. 3daas qaybood oo kala ah maxaan ku idhahdaa badda dacwada ka taagan tahay qaabkeeda iyo marxaladii ay soo martay dacwada hortaalla maxkamadda caalamiga iyo natiijada laga filan karo iyo xogta iyo xeeladaha ay Kenya adeegsanaysa si ay ugu guulaysto rabitaankeeda. waxaa dhici karta in iyo waxaan kusoo gunaani doonaa insha Allah gunaanada yar waxaa dhici karta in barnaamijku xoogaa yara dheeraado laakiin waxaan isku dayaa inaan bal ama hal qayb haddii insha Allah aan ku soo koobo haddii kale aan u kala gooyo 2 qaybood marka haddii ay noqoto inaan 2 qaybood u kala gooyo fadlan aseegin qaybta koowaad iyo labaad inaad wada daawatid si aad u heshid xog dhammaystiran. badda Soomaaliya dhererkeeda badankiin waad ogtihiin 3,300 oo kiiloomitir wax ka badan. maxaan ku idhahdaa khayraad badan ayaa dhex jiifa adduunyadan de sidoo kale kaligeed anagu badaha kaliya cidda kale leh ma nihin laakiin adduunyada sidoo kale ay leeyihiin bado khayraad badan oo kalluun batrool iyo gaasas ku jiro. baddu sidoo kale waa marin la maro oo ay kala guushaan ama isticmaalaan maraakiibta adduunyada u kala socota. haddaba waqtiyadii hore ma jirinin maxaan ku rahdaa bulshada adduunyada ku nool inta waa ka yaray khayraadku sida kalluumaysiga iyo maxaan ku rahdaa cilmi baarista batroolka ama gaasaska iyo teknolojiyada ma jirinin balse wixii 70-meeyada loo gaaray waxaa badatay teknolojiyada dhulka hoostiisa batrool laga baarayo gaas looga helayo kalluumaysiga waxaa abuurmay maxaan ku rahdaa maraakiib waaweyn oo wadata maxaan ku rahdaa qalab casri ah oo badaa xaalufinaya waxaa dhacday isku dhacyo badan. barigii hore marka Soomaaliya iyo dhowr waddan ka mid ah waxay qorteen ama ay sharciyeeyeen xadka baddooda kaasoo Soomaaliya la oran jiray law number 37 oo sheegaya insha Allah waa arki doonaa slide-ka soo socda ayka bacdi in 200 oo nautical mile ay tahay badda Soomaaliya. haddaba isku dhacyo badan oo khayraadkaas iyo dhibaatadaas ka yimid adduunyadu waxay go'aansatay in la helo xeerar kala haga. sidaa daraaddeed 1982 waddanka Jamaica waxaa lagu qabtay wax la yiraahdo United Nations Convention Law of Seas. xeerkaasaan hor u sheegay wuxuu qeexayay inaan xuquuqdadeena ay tahay 200 nautical mile way ka duwan tahay milekaas waa ka duwan yahay mileka caadiga dhulka
wax yar buu dheer yahay oo ah 1.15 hal dhibic hal shan ayuu la mid yahay oo maylka dhulka ah marka hawada iyo badda la cabira wuu ka yar duwan yahay marka adigu waa ilaa halkii mayl nautical mile wuxuu la mid yahay 1.8 kilomitir intaas waxaan lahayn sharcigaas wuxuu qorayay in awoodda madax banaaneeda oo hawada sare wixii dul maraayo wixii baddaas dusheeda maraayo iyo wixii ka hooseeya baanu leenahay waana meeshaas ilaa uu gaarayay dhibicda haddaan tilmaamayo wax xariiqaas buluuga ah meeshaan maadaama dhulka ay tahay marka 200 nautical mile halkaas bixay haddaba maxaa dhacay United Nations Convention for the Law of Sea ayaanu ka qayb galay 1982 wadamo badan oo ilaa 154 ayay ahaayeen ilaa maanta waxaa ansixiyey 168 waddan Soomaaliya waxay ansixisay sharcigaas oo saxiixday ay signatory ka mid noqotay saxiixayaasha waddan oo hirgelinaya sanadkii 1989 waa waqtigii Allah naxariistay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre xukunkii dowladda dhexe jirtay haddaba su'aasha isweydiinta lahaa waxay tahay muxuu heshiiskaas Soomaaliya ansixiyey ka bedelay sharcigii law number 37 ratificationkii markaan idinla wadaago oo sharcigaas u siixay Allah naxariistay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre haddaba waa kana heshiiskii ratificationkii Allah naxariistay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre siixay bishii Febraayo 1989 waad u jeedaan saxiix madaxweyne ayaa saaran oo waxay ahayd decree presidential oo ku soo baxday bulletin official ama official bulletin xeerkaas qodobkiisa labaad wuxuu leeyahay Soomaaliya waxaa ka hirgalaya dhaqanka xeerkaas United Nations ayaa na qabanaya macnaheedu waxay tahay wax kastoo xeerkaas qorayo ayaan ku xukumanahay qaybna kama qaadin karto qaybna kama tegaysid way jiri karaan qaybo qof dad wadamadu ay xuquuq u leeyihiin ay raaciyaan attachment ay raaciyaan annex markay xeerar siixayaan laakiin qodobkaas ayaan sharcigaas ayaan ogolaanay oo sheegaya wax kasta oo ku qoran annexkiisa iyo conventionkaas aan ku gowracanahay haddaba waxay tahay muxuu ka bedelay law number 37 haddaba heshiiskaas aan ratification ku sameynay wuxuu meesha ka saarayaa xeerkii law number 37 waayo qodobkiisa saddexaad ayaa wuxuu leeyahay waddan walba wuxuu xaq u leeyahay inuu xadaysto xadkiisa baddiisa inuu sameeyo taasoo aan ka badan karin 12 nautical mile oo laga cabiray badda maxaan ku radaa jinka badda laga soo cabiray xeebta laga soo cabiray conventionkaas baa marka na qabanaya waayo haddaan conventionkaas aanan u hoggaansanaynin oo aan raano law number 37 uu jirayaa haddee qayb ka mid ayaan diidaynaa markaas waxaa imaanaysa in xataa dacwada aan tagayno ICG da International Court of Justice inaanan ku doodi karin xeerkii inaan ka mid nahay marka maaha inaan baddeena ka takhalusnay 200 nautical mile laakiin waxaa loo bedel wax la yidhahdo EEZ kabacdina waxaa soo kor qayb kala timid oo continental shelf teknolojiyadu waa sii korortay badda faa'iidadeeda iyo maxaan ku radaa waxa hoosteeda ku jira in la raadsado awoodii lagala soo bixi lahaa ayaa la gaaray marka ayaa hawsha halkaa kasii badatay marka waan insha allah qaybtan baa ii sharxaysa saddexda qaybood waxay kula duwan yihiin territorial seaga waa qaybtaas 12 nautical mile aan ku soo koobanay aan ogolaanay inaan leenahay sida dhulkeena oo kale la mid tahay wixii hawada dul marahaya oo airspace-ka ah wixii badda korkeeda marahaya wixii badda hoosteeda gunteeda yaalla iyo wixii ka hooseeyaba annaga xaq u leh sovereignty-geeda Soomaalida ayaa iska leh waddan walbana waa sidaas si lamid ah waxaa la sameeyay marka wax la yiraahdo exclusive zone economic zone oo ah 200 nautical mile qaybta yarta oo contiguous zone-ka oo 12 ilaa 14 nautical mile ah
waa meelaha loogu talagalay enforcement law enforcementiga sharciyada customerka iyo canshuuraha iyo hadday noqoto maxaan ku radaa immigrationka iyo waxaas wax la xiriira laakiin waa labadan waxa muhiimka ah territorial seaga oo ah 12 nautical mile iyo 200 oo ah exclusive economic zone exclusive economic zone-kii waxaa meesha ka baxay hawada ma xukunta cidda maraysa laakiin weli waxaad xukuntaa badda dusheeda wixii ah badda maxaan ku radaa salkeeda wixii yaalla gunteeda iyo wixii ka hooseeya waxaa ku sii xiga wax la yidhahda extended continental shelf ama qalfoofka sare qaybtaas ayada waxaa meesha ka baxaya waxaa kaa soo haray territorial seaga waxa ku soo hartay hawada sare exclusive economic zone-kana waxaa ku jirtay ka hartay meesha inaadan hawada sare xukumin extended continental shelf qaybtaana waxaa meesha ka baxday inaadan xukuminin maraakiibda dusheeda maraysa ama kalluumaysiga laakiin wixii badda hoosteeda wixii ka hooseeya gunteeda iyo wixii ka hooseeya ayaad xaq u leedahay xuquuqna waa ku koraysaa inaad kaybulada la dhiganayo iyo haddaad wax ka samaynaysid jasiirada ka samaynaysid ama research ka samaynaysid ama gaas ka baaraysid waa inaad safetyga maraakiibta iyo adduunyada kala maraysana aad tixgelisaa marka shuruucay leedahay waxaas dhan lagu kala hago oo u gooniya wixii intaa ka dambeeya waa waxa la yidhahda high seas badda intaa dagaale aan cidna maxaan ku rahdaa gooni xuquuqaysan gooni u lahayn laakiin ummaddan adduunyada dhan ka dhexaysa territorial waters oo ama waxa la yidhahda EEZ waxaan u soo noqonaya EEZ-ka oo ah economic zone-ka qaybta dhaqaalaha xindaabka dhaqaalaha waad leedahay oo aad xaq u leedahay madax banaanida saamintiisa ka faa'iidaysiga dhowrista iyo maaraynta khayraadka dabiiciga ah kuwa nool iyo kuwa aan noolayn iyo sidoo kale waxaad awood sharci u leedahay inaad ka dhisan karto jasiiradan dabiici ahayn ama aad ku rakibi karto qalab kaybulo ama dhismo ama aad cilmi baaris ka samayn kartid waana meeshaas marka meesha madaxweyne xasan sheekh waqtigii dowladdiisii uu proclamation wax la yidhaahdo hanasho ama maxaan ku rahdaa sheegashadanadii si loo sharciyeeyo uu u gudbiyey united nationska waxa la yidhahdaa proclamationkaas uu u gudbiyey kaasoo asagana aan idinla wadaagaya haddii aad arki doontaan waraaqdaasi saxiixii madaxweyne xasan sheekh waa kana waraaqdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo proclamationka ku sameynayay oo ku taariikhaysan bishii juun 30keedii 2014 taasoo sheegaysa maxaan ku rahaa EEZ-kana iyo xuquuqdaan u leenahay oo ah intaad aan hore idinku soo sharxay qayb Soomaaliya macnaha ay leedahay jurisdictionkeeda wixii sharciyan wixii badax oo ciddii dul maraysa ciddii maxaan ku rahdaa ku samaynaysa wixii scientific research awooddaas dhan macnaha Soomaaliya waa qoraalka waad u jeedaan qodobka afraad unbaa xoogaa muhiima oo ah haddii ay dhacdo waa inaan wadamada nalada nagu dhegan naga soo horjeeda oo saameyn karto exclusive economic zone-keena waa in Soomaalida la gashaa negotiation haddii ay jirto wax maxaan ku rahdaa isfaham la'aana waraaqaasna waa ujeedaan waxaa ku seexan madaxweyne xasan sheekh oo seexay maxaan ku rahdaa 30 bishii juun 2014 haddaba waxaan rajaynayaa taasi in meesha ka saarayso doodaan salka lahayna ah in waqtigii madaxweyne xasan sheekh uu madaxweynaha waddanka ahaa la baabiyey xeerkan la yidhahdo law number 37 oo aanay tusay in la seexay heerka ratificationkaas la seexay 1989 oo ahayd waqtigii dowladdii allah naxariis maxamed siyaad barre waddanka talinaysa madaxweyne xasan sheekh waqtigiisii EEZ-kan ayuu proclamation ku sameeyey iyo maxaan ku rahaa sheegashada in la xadeeyo 200 nautical mile oo ah xariiqaas aa ujeedaan oo ah kurdiga ah ayaa sheegahaya maxaan ku rahaa 200 nautical mile zone-ka ee Soomaaliya haddaba markaan waxaan u gelaynaa continental shelf wax la yidhahdo qaybta qalfoofka waa qaybta saddexaad waddanka xeebta iskale wuxuu xaquuq u leeyahay sidaan sheegay madax banaani ujeedadiisu tahay saaminta iyo ka faa'iidaysiga khayraadka dabiiciga iyo qalfoofka
taasoo la xadidahayo waan u imaan doonaa waa midda keentay muranka annaga iyo Kenya noo dhaxaysa masawirka hoose waad ujeedaan waa baalka oranjiga ah ayaa ah continental shelfiga wadamada dhan ma wada laha ilaa wadamo 60 dhowr ayaa leh 70 dhamayn ayaa continental shelfiga iskale ma wadan walba khayraad ilaahay siiyey waana meesha mar baan ku faano khayraadka ilaahay siiyey dabiiciga ah wadankan waad ujeedaan continental shelf dheer baanu leenahay kaasoo macnaheeda xuquuq gooni kagama lihid ciddi dul maraysa ama ciddi kalluumaysiga maraysa laakiin wixii badda hoosteeda gunteeda iyo ka hooseeya ayaad xuquuq gooni u leedahay haddaba MOU-ga memorandum of understanding-kii la seexay oo dacwadan iyo doodaan muranka badan dhaliyay baahi ma loo qabin waana meesha isku xiraysa marka dacwada iyo MOU-gaas iyo continental shelfiga maadaama aan sheegay United aan saxiixnay heshiiskaas qodobkiisa afraad annexiska labaad wuxuu sheegayaa qodobkiisa afraad wuxuu sheegayaa in wadan walba oo raba inuu kalim gareeyo ka faa'iideysto continental shelfgaas alfoofkaas badda wixii ku hoos jira waa inuu muddo 10 sano kadib ah waqti ratificationka ama uu ansixiyo heshiiskaas uu soo dalab keensada oo kana documenti iyo wixii supporting ah taasaa waxaa marka sii raacaysa in laba wadan oo kasta oo xiriir leh ama iska soo horjeeda oo muran ka imaan karo inay ogolaadaan in qolo walba gudbisan karto laakiin wixii dooda gooriyada dacwadeeda meel kala taa waqti kale la xalinayo haddaba Soomaaliya maadaama ay saxiixday in sheegay 89 ratificationkii waxa imaanaysa 10 sano 99 bay ahayd ma dhicin oo wadamo badan waxa la ratificationka lagu sameeyay wadanka ugu dambeeyay oo ilan taragu aan baa jirto wadamada loo baahan yahay inay ansixiyaan si dhaqangal u noqdo wadanka sharcigaas 1994 ayuu dhaqan galay dhowr sano u jiitay haddaba 2001 ayaa meetingkii la isugu yimid ayaa waxa lagu go'aamiyay wadamada saxiixay 1999 ka hor inay haystaan muddo 10 sano oo xeerkaas 10 sano ayaa waxa loo turjumay wuxuu ka bilaabanayaa May 1999 macnaheedu waxay tahay 10 sano kadib inaanu soo gudbino wixii akhbaar ah oo ku saabsan alfoofka badda continental shelf wax loo yaqaan laba calaamadood baan saaray oo labada calaamad guduudka waxay tilmaamayaan 10 sano muhiimadda leedahay iyo midan kale waxa ayada la socota waa in wadan kasta cidda ka kaalmaysa commissionka haday ku jirto members ka mid yihiin waa in magacyadooda ay soo gudbiyaan waana muhiimadda meesha aan calaamadiyay waa in shar oo ina wadaagi doonaan gaalay marka waxa muhiimadu waxay tahay MOU-ga waa baahi waa jirtay in la wadaago si labada wadan inaysan dood inaan waxba ka qabin in qolo walba ay gudbisato continental shelfiga ma aha territorial sea-ga ma aha EEZ-ka waa continental shelfiga haddii overlapping maadaama isku saar u jiri karo in qolo walba information-ka ay gudbisato ayuu heshiiskaas sheegaya Soomaaliya qayb ka mid ahayd way ku qasbaneed marka inay gudbiso barnaamijkaas haddaba aniga wax raacayo meeshii labadan calaamadiyay wadamada naga kaalmeeyay wadamada Kenya ka kaalmeeyay iyo wadamada ayaan waxaan raadinayay xubno bal dadka ku jira waxa ii soo baxday Brazilian dhowr ninkan yiraahdo Master Harold Breck oo Norwegian ayaa Soomaaliya ka mid ah guddiga ka kaalmeeyay sidoo kale Kenya ka kaalmeeyay marka kuma koobnayna anaga kaliya taas macnaha waxaan fiirshay wadamo kale oo ka kaalmeeyay Canada xataa oo ka mid ah member dadkii la diyaariyay barnaamijkaas oo si loo marka submission kala sameeyay marka shakiga ah Norway dangoori kale waa jiri karaa laakiin inta waxaan ku soo board gareynay in macnaha ay jirto inuu meel kale wadankan uu ka qayb ka mid ahaa Yemen oo kale waxay cidna uma baahnin ayagaas ka kaaf isku filaa inay waxooda gudbiyaan waayo technical badan iyo khabaar badan u baahan yahay haddaba gudbinta dacwada iyo maxaan ku radaa ICG-da yaan hadda wax u galayaa waxaan saxinay memorandum-kan understanding oo ah aan saxinay 7 April 2009 badina waa ka wada dhegsantihiin kaasoo sheegaya maxaan ku radaa in la xiriiray continental shelf ama qalfofta badda si maxaan ku radaa loo claim gareeyo ama aan u sheegano
inaan ka faa'iideysan doono mustaqbalka haddii aan leedno haddaba waxaa jirta khiyaamo ayadana la wadaagi doono oo ku dhex jirtay MOU-gaas memorandum of understanding-kaas iyo Kenya oo lafteedu ay inay maxaan ku radaa khiyaamo gooniya wadatay oo taasoo soo dedejisay inaan maxaan ku radaa ICG-da dacwadan u gudbin dacwadaas oo la gudbiyey 28 August 2014 waa waqtigii dowladdii xasan sheekh waddanka ka talinaysay haddaba waxaan idinla wadaagayaa memorandum of understanding-kii u dhexeeyay Soomaaliya iyo Kenya badidin in aragteen baa laga yaabaa laakiin waxaan dul istaagayaa qodobadan is leeyahay khiyaamada ama dayacu waa ka jiray badanaa waxaan isticmaalaa marka xataa qoraalladan ka hadlaa dayac waayo tuhun in cid wax ku talgal u samaysay waa wax u baahan maxaan ku radaa caddayn taasna ogaanteed ma hayo anugu marka memorandum of understanding-ku sidaan buu qoraa dhowr baargaraaf buu ahaa 6 baargaraaf buu qaybsanaa sidaad ujeedaan AAW waa cabdiraxmaan cabdishakuur warsame wasiirkii hore ee wasaaradda qorsheynta oo saxiixay heshiiskan waqtigii dowladdii sheekh shariif qodobada isku caadi bay u badan yihiin qoraalkan waa wada aragteen badankiin laakiin qodobka ugu badanoo muranka keenay baaragaraafkan 6aad waaye ereygaas aan maxaan ku rahdaa ku sameeyey highlightka ku sameeyey jaallaha ah areas waa meesha muranka badan dhalisay iyo ereygaa la socda including waayo heshiiska MOU ujeedadiisu waxay ahayd in la gudbiyo continental shelfiga qolo walba ay akhbaartooda gudbisato haddii wax muran uu jiro hadhow loo saaro delimitation guddi oo continental shelfiga u qaabilsan loo saaro haddaba Kenya waxay samaysay ereygaas areas waxay taas ku dartay waayo waxaan tusi doonaa qoraalkii ay maxaan ku radaa ninka Amadou Waliid Cabdallah oo ahaa markaas ninka United Nations representative ku ahaa iyo qoraalkan u gudbanay United Nations-ka taas kuma jirto way ka maqantay waxaad ka dareemaysaan waa kulli ma garan karo dacwadii doodii iyo looyaradii ay qayb ka ahayd laakiin ereyga Kenya ku doodaysa waxay ahayd areas marka la yiraahdo waxa ku jiray leeyihiin in laga hadlo including ayadoo sababta loo leeyahay waxay sheegaysaa in laga hadli karo muranka ah territorial siiga iyo EEZ-ka heshiiskaana qoraalka wuxuu ku salaysnaa kaliya continental shelfiga qalfoofka badda marka khiyaamada aan kor ku soo sheegay qaybta hore taas waa mid ka mid ah oo ah annaguna ujeed qoraalka markaan gudbinaynay dee taxadar la'aanta lafteedu dayac waa ka yimid meesha waayo marka sharciyan waxa laga hadlaya taas baa wax bedelaysa looyarada sidaan gadaal ka arki doono go'aankii maxkamaddu wuxuu ahaa 6 jeeroo hore ayaa ereyga area la isticmaalay macnaha waxay yidhahdeen marka singular iyo plural jamac iyo keli farad midna waxba ka bedeli mayso heshiiskan wuxuu ahaa heshiis ku salaysan qalfoofka badda balse haddee waa khiyaamada waa la tusi doonaa qoraalka UN-tan weli uu yaallaa website-keeda kan yaallo aan u diray oo dowladda Soomaaliya iyo maxaan ku radaa ninka ahaa representative-ka u ahaa Waliid Cabdallah taas kuma jirin qoraalkaas way ka maqantay marka waa meeshaan khiyaamadan cuskanayo waa taas hadda dayac hadduu ku timidna kale ayadana mudnaanta mudan waxay tahay qoraalka sadarka ugu dambeeya wuxuu leeyahay heshiiskan understanding-ka wuxuu sharci noqonayaa markii la saxiixo kaasna meesha wuxuu ka saaray awooddii baarlamaanka oo baarlamaanka markii Soomaalidu ku dooday in baarlamaanku uusan ansixinin kuma qorna meeshaan marka in baarlamaanku ansixiyo waayo hadduu baarlamaanku ansixin u baahnaan lahaa diidmadii baarlamaanka ayaa awood noqon lahayd intaasoo waraaqood baa la diray intaasoo maxaan ku radaa go'aankii lagu kansalayay laakiin wax ka soo qaad la'aan buu ku dhammaaday waayo heshiiskaani ma sheegaynin in baarlamaan u baahan yahay in uu ratification ama ansixin uu ku sameeyo baarlamaanka ayaduna hadda waa ilduuf waxaan filayaa xaggeena ka dhacay inuu yahay sidaa ujeedaana waxaa saxiixay heshiiskaas wasiirkii arrimaha dibadda ee waddanka Kenya
Wetangula Moses Wetangula iyo wasiirkii qorsheynta qaranka iyo xiriirka caalamiga ah mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo waqtigaas ahaa qofkii u siixay Soomaaliya inta haddaan isla garanno markaan khiyaamo meesha ka jirtay dacwadu waa tii la geeyey ICG-da 2014 bishii Agost 28 haddaba waxaa muhiim ah inaan horta bal wax aan ka yiraahdo maxaan ku radaa ICG-ga koortiga oo aan saxiixnay waxaanu ka mid noqonnay 11 Abriil 1963 sababtaan intaan u soo qaadana waxay tahay dooda ku salaysan Kenya asaaskeedu waxay ahayd ICG inaysan xuquuq u lahayn inay dacwadan gasho waana meesha aan leeyahay khiyaamada Kenya ma ahayn mid markaan bilaabatay laakiin waxay ahayd maalintii saxiixayeen heshiiskan ama xornimada qaateenba inaysan ka maqneen maskaxdooda ka maqneen hamiga inay badda Soomaaliya maalin uun muran geliyaan ama ay ugu qabsadaan Soomaaliya waxay saxiixday 1963 waxa saxiixay Allah u naxariistay Prime Ministerka hore Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda markaas ahaa Cabdullaahi Ciise 25 March 1963 hab yaraatee wax anagu maan raacin close ah ama qayb wax xadidaya maxaan ku radaa haddii ay dhacdo ama aan ka biyadiino Soomaaliya waxay reserves the rights at any time by means of notification laakiin waxaan sheegnay inaan mar walba aan xuquuqda aan mar walba ka dacwoon karno ama aan ku samayn karno maxaan ku radaa dib u ku dari karno waxaan ka dhimi karno taasna waanu haysanay laakiin markaas waxba ma sheegin gooniya Kenya waxay saxiixday 19 Abriil 1965 maadaama ay 2 sano xornimada naga dambeysay heshiiskan way naga dambeysay laakiin qodob bay raaciyeen waa qodobka ugu hooseeya oo ah disputes in the regard to which the parties to dispute have agreed or shall agree to have recourse to some other method or methods of settlement waxay heshiiskaas 1965 ku dareen in haddii muran dhaco marka hore lagu xaliyo hab kale aysan koortigu geli karin hore ka geli karin waan meesha hadda ku dacwoonaysay ay lahayd MOU-gan wuxuu u yahay la mid yahay method or methods oo xeer lagu kala bixi karo marka xaq uma leedin inaad soo gashaan hadee ma garan kareen naga caqli badnaayeen iyo inay khiyaamadu naga qoto dheeray laakiin kulleyba fikirkaas waxay qabeen markay heshiiskan saxiixayeen 1965 hadda waxaan u galayaa qaybtii labaad ahayd dacwadda hortaalla maxkamadda caalamiga iyo natiijada laga filan karo markaas si aan u fahamno natiijada laga filan karo waa inaan wax ka naqaana qaabka wax loo cabiriyo qaabka maxkamaddu ay wax u kala goyso markii murankan kala u dhaco annagu badanaaba dacwadana wuxuu ku salaysan yahay qodobka 15aad oo maxaan ku radaa oo United Nations Convention Law of Seas oo cabirka waxaa la isticmaalaa wax la yiraahdo equidistant waana midda badanaaba dacwooyinka ugu badan oo soo maray maxkamadan lagu kala saaro oo ciddii maxaan ku radaa equidistance line-kaas la timaada ay badanaaba ku guulaysato qodobkaas marka wuxuu qeexayaa in haddii ay dhacdo in agreement labadii waddan ay gaari waayaan in equidistance lagu kala saaro iyo habka loo cabirayo marka detailskaas ma garaayo laakiin laba arrimood baan meeshan calaamadiyey oo ah wax la historic title haddii jirto sharcigan ma qabanaya li equidistance-ga iyo haddii jirto special circumstance qoraallo badan baan ka sameeyey waxyaalo special circumstance-ga noqon kara oo badanaa waxta Kenya hadda ay aad u diyaarsatay ay ka mid tahay waxyaalo ay ku soo dagaalgeli doonto hatta historical title-ka sheegashadaas badanaa ma sheegan karto dee inkastoo yiraahdaan madaxweynahooda hore iyaga ayaa seexay annaga iska lahayn meeshan laakiin taas wax badan oo hadda awood badan oo ma haystaan maxaan ku radaa taageero badan ma haystaan taas laakiin waa midaan special circumstance-ga midda ay aad u xiiseynayaan ayadana wax yar baan gadaal ka oran doonaa daalayna Soomaaliya marka annagu waxaan sheeganay xariiqaas guduudka ah qaabkaas aan u cabiranay oo ku salaysan xuduudda badda toos u baxayo Kenya waxay sheegatay midkaas huruudka ah ama line-kaas aan ku qoray xariiqa Kenya waana dhulka dacwada iyo muranka badan ka jiro oo shidaal badan iyo ceelal badan oo shidaal ay ku jiraan haddaba
Kenya waxay dacwada asaas u ah oo special circumstances aan kor ku soo sheegay ka mid ah waxay leedahay annaga Tanzania iyo Kenya habka wax u cabirteen waa midkaas mid la mid ah Tanzania iyo waddan kale ku sii dhigan I believe inuu yahay Mozambique asagana waxay u kala cabirteen qaabkaas oo kale marka waxay leeyihiin haddii xariiqan sida Soomaalida loo jilciyo hadda waxay noqonaysaa in muran badan iyo isqabsi badan iyo gadaal loogu noqdo annaga Tanzania Mozambique marka waxay furaysaa doodo badan iyo dacwado badan waa qayb ka mid ah ku doodayso dacwada haddaan wax yar ka iraado marka xubnaha 15 ICJ-ga oo International Court of Justice-ka si aad ogtiinba waxaa hadda madax u ah muwaadin Soomaaliyeed Cabdulqaawi Axmed Yuusuf Dr. Cabdulqaawi Axmed Yuusuf waxaana vice president u ah gabadhaas la Shuu Hangeen sababta intu waxay tahay waaye way khuseysay dacwadana qayb ka mid ah Kenya waxyaalaha aad u buunbuunaysa waxa ka mid ah inuusan judge Cabdulqaawi uusan ka noqon karin impartial laakiin taas uma diidaysa inuu ka qayb noqdo courtiga waxaas qabanaya sharciga u yaala ICJ-ga oo oranaya haddii madaxweynaha waddanka dacwada dadka isku haysta midkood uu madaxweynuhu u dhashay macnaha presidency-ga ma sii noqon karo waana sababta hadda dacwada markii ugu dambeysay oo Soomaalida iyo Kenya dib loo dhigayay ay haweeneydan vice president-ga ay madaxda ugu ahayd Cabdulqaawi marka codkiisu waa leeyahay judge waaye garsoorayaasha mid ka mid ah waaye laakiin ma laha awoodii madaxtinimada Kenyana waxaa loo ogolaaday inuu wax la ad hoc judge inay ku soo darsato oo markaa nin la yiraahdo Julamo Francis oo ahaan jiray booska Cabdulqaawi uu joogo la mid ahaa 1994 iyo waqtigaas muddo soo shaqeynayay ayaa wakiilato inuu matalo Kenya marka taasna de xaq bay u leeyihiin ma khasbeen waddankooda qof u dhashay u matashaan laakiin qofkii rabaan bay u matalan karaan doodan Cabdulqaawi iyo ayadan wax yar baan ka oran doonaa hadii aan magadaal iyo saameynta ay ku yeelan karto Kenya macnaha waxyaalo ay rabto inay ka dhigto dood ah uusan noqon karin dacwada mid u dhacda si xaq ah maadaama nin Soomaali madax ka yahay ama uu awood ku leeyahay meesha marka laba waxay keentay dacwo ay keentay dowladda Kenya waana dhibka MOU-ga naga soo gaaray ko waxay ku dooday horta inaysan xaq u lahayn dowladda ICJ inay gasho dacwadan maadaama aysan lahayn awood ay ku gasho MOU-gana uu yahay wax method of settlement wax lagu kala bixi karo taas waa laga diiday waqti hadda marka la yiraahdo waa geli kartaa dacwada laakiin dhibaatada inoo keento waxay noqotay MOU-gii in la aqoonsaday uu yahay wax sharci ah waa written document baa la yiri oo labada party ay kala galeen international law uu waafaqsan yahay marka kolleyba wixii khasaara naga soo gaara ilaahay hanaga haye waa dhibkiisa lugoyisa uu lahaa laakiin waa baahi loo baahnaa ahayd wixii khaladaad ku jirayna waa wax in loo diyaar garoobo ama loo yarayna ay diyaar garoobeen ba aan qabo ay ku filan yihiin dariiqan Cabdulqaawi wuxuu qoray markii dacwada dhamaatay qoraal uu ku ayidayo go'aankii ahaa maxkamadda inay geli karto balse wuxuu duray wuxuu ma jirto heshiis noocan kale ah oo kala afgarada oo laba dowladood kala saxiixdeen oo haba yaraatay aysan wax luga ku lahayn ama ka wada xaajoon ama si taxaddar looga xaajoon waxtaa diyaarintiis waayo Soomaaliya hal eray kuma darin MOU-gan Kenya waxaan filayaa inay ciwaanka wax ka bedesho midii ahayd areas waxay ahayd dispute-kaas way ku doodeen waxay yiraahdeen xaq waxaan u leenahay inaan ka doonno badda territorial zone-ka territorial sea-ga iyo EEZ-ka waa laga diiday waxa la yiri plural single hal meel ku jirto hafiirinina waxa fiishan guud ahaan MOU-ga taasina wuxuu ka turjumayay continental shelf-ga foofka badda waa tan qayb yar aan ka soo gooyay qoraalkaas aan sheegay UN-ta saas uu qoran yahay waa area under dispute MOU-ga markaa fiirsan S baa lagu daray waa meesha kolleyba
aan ilaahay khiyaamada iyo annagana xogaa ilduufka aanu ka galay waana iska fiirin waxa saxnay iyo waxa UN loo gudbiyay anigu gaar ahaanteeda dacwadan aad baan ugu sababtan intuu qayb badan baan ka qaad sababtan intuu ninkii hore Harold Beck waxay ahayd markii dacwadan soo baxday 2014 heshiiska la saxay ayaan waxaan u diray ayaan la xiriiray laftigiisa waa nin Norwegian oo u shaqeeya macadka cilmi baarista macdanta iyo gaaska dabiiciga Norway baan rabay inaan tago oo aan shaqaan u tagay markaan la kulmaan jeclaystay waan wacay marka wixii qoraalhaan igu soo qoraal baan u diray laba su'aalood baan weydiiyay laba su'aalood ahaa maxaan ku raadaa kow agreement-gan memorandum-kan ma yahay legal agreement iyo Kenya maxaan ku raadaa Norwegian doorka ay ku leeyihiin heshiiskan maadaama dowladda Norwegian embassy-ga meesha joogay wuu soo jawaabay wuxuu yiri MOU-gan waxa yaraatay sida uu qoran yahay waa contentan shafra loogu talagalay wax ka baxsan ma aha waana common practice biiri oo waan arkay runtii mid kale oo Norway waxaan malay Canada iyo kala qorteen Denmark baan malaya oo saabsan Greenland-ka wadamo kale waan arkay marka MOU-ga waa wax badan iska normal ah laakiin taxadar inuu kulleeba loo kala qorto ayuu ku haboonaa oo sida Cabdiqaawi sheegay taxadar badan lama muujinin markii la galayo wuxuu kaloo sheegay Norway inay UN-ta iyo Cabdalla Waliid ninkan hore u soo sheegay ay ka codsadeen inay ka kaalmeeyaan Soomaaliya maadaama aysan awood dhaqaale lahayn iyo technically iyo financially midna aysan awoodin arrimahaas waxaan la wadaagay maxaan ku raadaa looyaradii dacwada noo qaabilsanaa ayaan qoraalka la wadaagay waxaan u sheegay maxaan ku raaddaa in ninkaas Harold Beck qoraalkaas una dhex maray kaasoo hadduu support gareynayo dacwadooda ay muhiim tahay inay kulleey ogaadaan maadaama uu ka mid yahay Harold Beck wuxuu ka mid yahay qoladan yiraahdo UNCLOS-ka waa member ka mid ah waa dadka dhow dacwooyinka gala markii la kala xadeynayo way soo jawaabeen nasiib wanaag maalmo kadib waxay yiraahdeen aad baan ugu faraxsanahay in aan helno qof high position oo positionkeena macnaha taageersan mowqifkaanu taaganahay oo ku farxeen laakiin waxay sheegeen ma isticmaali kariyo documentigaas courtiga markaan fiirsana waa run oo waxa xeerka maxaan ku raaddaa ICJ-ga ayuu wuxuu qorayaa in markii documentiga courtiga aysan wixii intuusan dhicin ka hor la gudbin karo laakiin mar hadday dhammaato ama oral ku dhammaado discussionka waxay u baahan yihiin inaan la gudbin karin marka waa inay door dheer galaan marka saasaan ugu qancay looyaradii dacwada noogu jiray cudurdaarka ii muujiyeen ah inaysan isticmaali karin hadalka Harold Beck Kenya waxay isticmaalaysaa xeelado badan si ay arrinkan ugu guulaysato waxaa idin caddeynaya aqoonyahan ilaa 40 aqoonyahan bay waxay ku casuuntay wadankooda waxaa ka mid ah leeyahay Bashir Shatima oo ah ninkii dacwadii Cameroon iyo Nigeria markii ay haysteen madaxda ugu ahaa waxaa kaloo kala jiray ninkan leeyahay Kimoli Sagala waa nin consultancy aad iyo aad arrimahan Soomaaliya badda hanti badan wuxuu gashay waqti badan iyo maxaan ku raaddaa effort badan wuxuu leeyahay qoraal noocaan oo kale leeyahay uu ku duraayo international court-ga uu leeyahay ma gaaraan hadiiba aan maxaan ku raaddaa oo xaqa ma gaaraan kaasoo ku xadgudbi kara wadamada ay matalaan marka Cabdiqaawi uu dan lahaa asigana qoraallo iyo meelo badan baan dhex maray ilaa markii dambe uu yiraahdo adeer fikirkaygaan qabaayaniyahu ana kala amaan gali laakiin meeshan waxaan ka wadaa aqoonyahanka Soomaaliyeed doorka uu ku leeyahay waxaan moodaa inaad kaga dheereeyay oo 40 sadda aqoonyahan la isu keenay wax badan bay dowladda Kenya kala tariyeen ninkan Bashir Shatima waa la xiriiray wax badan igama suur gelin oo wax jawaab ka helin laakiin xeelada isticmaalayaan waxa kamid ah horta in waxa la yiraahdo dispute-ki ereyga dispute horta loo bedelo conflict si conflictigu ilaa adduunyada soo dhex galaysa in la dhexdhexaadiyo ku xasbanaanaysa waxay kaloo soo jeediyeen nimanka aqoonyahanada in la isticmaalo wax la yiraahdo soft power kaas oo u qaybsan ilaa 8 qodob kon koowaad wuxuu sheegayaa in maxaan ku raaddaa wadanka dad gudihiisa muwaadiniinta Kenya maskaxdooda la hanto oo maxaan ku raaddaa aad looga dhaadhiciyo go'aankan iyo si ay u garab istaagaan
waxay kaloo aad soo jeediyeen in la isticmaalo waxa la yidhaha effective occupation tan waa laga yaabaa dadka qaarkiis inay dhibsadaan waa qayb ka mid ah arrimahan jubbaland iyo waxa ka taagan macnaha in waddanka ay yidhahdeen xataa wax qarsoon maahayn dad badan advocate ka mid ah maxaan ku rahdaa madaxda kenya oo xataa uu ahaa ra-iisul baarlamaanka uu yidhi wixii awoodana ha lagu qabsado ha lagu sameeyo occupation ha lagu sameeyo si aan securitygeena iyo maxaan ku rahdaa economic dhaqaalaheena iyo aan danaheena u ilaashano waxay kaloo aad u yidhahdeen waa inaan yaraynaa sida dadka Soomaaliyeed muwaadinimada looga dili lahaa sida dadkooda elite-ka ahaa aysan u isticmaalin kicin aysan ugu guulaysan inay ummadda bulshadooda u kiciyaan waa in soft power-kaas qayb ka mid ahay waa in la yareeyaa residual Somali nationalism wadannimada ku hartay Soomaalida waa in meesha laga saaraa waa qodob ka mid ay soo jeediyaan bay ahayd oo soft power-ka ah oo 40 aqoon-yahan ay soo jeediyeen oo la wadaageen dowladda waxay kaloo soo jeediyeen in maxaan ku rahdaa ay ka dhaadhiciyaan international court inay tahay Anglo-Saxon aysan fair ahayn oo aysan ahayn wax Afrika ama arrinkan geli karta ku habboon oo weli maxaan ku rahdaa maskax gumeysi ay ku shaqayso qodobka shanaad ay soo jeediyeen waxay ahayd in maxaan ku rahdaa la isticmaalo wadamada carabta Gulf State iyo geopolitical interest-ga oo dispute-kan soo dhexgeliyo waana arrimaha laftooda taabanayso aad ka dareemaysaan maxaan ku rahdaa inay yiraahdaan qatar iyo turkiba kan wada ayaga dubis xijiyaan oo arrimaha laga dhigo arrimo dagaalka golfka ee loo soo raro dispute-kan qayb ka mid laga dhigo si loo weynayo adduunyada mushkilada ka iman karto waxaan haddaan xal waara oo Kenya ku qanacsan tahay loo helinin mid kale waxay yiraahdeen waa in maxaan ku rahdaa aan soo amuujinaa doorka ay kumaniyada saliidda iyo ku leeyihiin xiriirkan dacwadan oo ay dab ku shidayaan hadda kumaniyada saliidda inta kale ayagu xagga waa joogaan waxa jooga Total joogtay maxaan ku rahdaa NA joogtay shirkadana joogtay iyo maxaan ku rahdaa Qatar shirkadda oilka joogta marka laakiin kulleeba waxay ujeedadoodu ahayd inay si gooniya u yiraahdaan shirkada shidaalka ayaa mashruucan Soomaalida dacwada gadaal ka wada oo ay dhinac kale u leexiyaan dacwada xuquuqdeeda iyo xaq aan leenahay ay meel kale u saaraan waxay kaloo aad xoog u saareen inay yiraahdaan maxaan ku rahdaa IGAD iyo in loo isticmaalo African Peace and Security Architecture loo isticmaalo in negotiation arrinka lagu dhameeyo waana sababtii xataa keentay hadda shirkii Addis Ababa inay aad ugu dadaaleen in Soomaaliya iyo Kenya African Union ka dhexdooda lagu xaliyo oo Xusni Mubaarak xataa u soo dhexgalay Xusni Mubaarak aan dhihina madaxweynaha Masar al-Sisi Abdulaziz uu soo galay inuu isu keeno qodobka sidaad u dambeeyay wuxuu ahaa in UN ay hesho inay UN Security Council-ka wadamada ku jira ee aad uga dhaadhiciso mowqifkooda waana sababta ugu dadaalaysay inay noqoto xubin 15 xubnood mid ka mid ah maxaan ku rahdaa United Nations Security Council ay kula tartamaysa Djibouti ayagoo raba inay ka dhaadhiciyaan in dacwadan ay murankan Indian Ocean uu keeni karo in adduunyada Indian Ocean-ka uu noqdo maxaan ku rahdaa meel aan deganayn marka waxa dhan wax maxaan ku rahdaa iskaabayo waayo midda toddobaadan waxaan ka ilmaamay waa kuwii rabeen inay noqdaan maxaan ku rahdaa piracy-ga kuwa badaha ilaaliya inay xataa madax u noqdaan oo Soomaalidu ka soo horjeesanaysay marka qodobadan waa qodobo aqoon-yahankooda iyo dadkooda elite-ka ah ay lug ku lahaayeen natiijada la filan kara maxay tahay natiijadu waa 3 nooc bay noqon kartaa in maxkamadda ay ku raacdo qaabka anagu wax u geysanay oo ah in la isticmaalo xariiqa equidistance-ga ah inay maxkamaddu raacdo qaabka ay Kenya wax u cabirtay oo ah in maxaan ku rahdaa iyadana parallel laga dhigo ilaahay uma kasi nooma kasi ilaahayna kuma guuleeye iyo in maxkamaddu iyadoo cuskanaysa qodobadaas aan soo sheego ah maxaan ku rahdaa specific circumstance iyo inaan dadkii farmaraan la dirin inay wax xeer jajaba inay keento way wax ku cabirto qodobka koowaad waa kaas oo haddii Soomaaliya loo xukumo alxamdulillah ilaahay hanoo saala kaas inuu noqdo natiijada haddii Kenya loo cabirana waxay noqonaysaa in parallel loo cabiro dhulkaas dhan ayadu ay markaas saas u qaadato oo maxaan ku rahdaa parallel u noqdo waa leenkaas macnaha parallel ka u noqdo
كأني هرنا صانوها معناها iyo in la yiraahdo qaab xoogaa farsamaysan xoogaa hala leexiyo xataa inta hore territorial seaga abtu maxaan ku radaa hala daayo ama economic zone-ka laakiin ka bacdi la qalloociyo way dhici kartaa technically waa arrimo kale oo waxa ku xirnaan karta in la fiiriyo nasi wanaag jasiiradii waxa ma jiraan qoraal fiican baa jiraan aad uga hadlay arrinkan oo hiiraan online ku jira marka oo qaabka wax loo cabiri karo waxa dhici kara specific circumstances aan kaga hadlayo marka waxa dhici karta in la yiraahdo qaab noocaas Kenya xoogaa loo reebo ayuu ku doodaya inaysan noqon land lock macnaha inaysan xuduudahoodii waxoodii ismaash ka bixinin bal wax loo reebo waa iyana wax dhici kara waana sababtaan ugu leeyahay barnaamijkan u soo diyaariyo inaan wax walba surprises ugu noqonayo aan ogaano wax dhici kara qoraallo badan ayaan ka sameeyay oo dacwada la xiriirta waxaad ka heli kartaa Hiiraan online iyo Somali Talk baan jeclaan lahaa inaan u mahadnaqo oo dad aad dhalinyaro aad u istaagtay barnaamijkan waqti hore aan badanaa qoraallo badan xaggooda ka diyaariyay Hiiraan online sidoo kale ayaan u mahadnaqayo qoraallo badan oo ku saabsan arrinkan iga aqbalay iyo maxaan ku rahaa editorkooda Axmed Guure hadda marka waxa dhacday markii walwal badan baa igu taagnaa oo hadday dhacdo Kenya inay dacwadu loo balasiya ka baaqato laba jeer hore waatii hadda dacwadu dib u dhacday hadda bishii June baa loo balansanaa maalin 7 April waxaa la soo qoray in waqtigii dib maadaama cudurkan COVID-19 uu adduunyada farakul ku hayo la safri karin Kenya cudurdaar ay u noqon kartaa hadda kaga dhigato ay tiraado culays badan baan ugu furan nimayo maxkamadan iyo warka dib noogu dhiga nasiib wanaag waan la xiriiray email baan u diray waxaan la xiriiray information officer-kooda aan weydiinayo warbaxan dib u dhici kartaa way walwalkaas aad bay ugu taagneyd in dib u dhacay maxaan ku radaa nasiib wanaag waxay soo qoreen isla markiiba inaysan dacwadaysan baaqanaynin qoraalkan bay soo saareen inay 8 April ma xusuusmadahay laakiin 8 filay inay ahayd way leeyihiin online baa xataa lagu qaadayo hadda waxay galeen dacwo galeen maalin dhaweyd oo qaabkan online-ka ayaa lagu galay marka waxay yiraahdeen we will continue maxaan ku radaa to discharge our functions and deal with matters submitted to all those already pending before so dacwadii way dhacaysaa insha Allah 8 June 2020 hadday dhacdo Kenya markayna ka baaqato waxaan xaq u leenahay inaan sheegano inay go'aanka dacwada dhinaca u xukunto waa qodobkaas 53 ayaa sheegaya laakiin waxaa la raaciyay waa in maxkamaddu ay hubisaa si degan in maxaan ku radaa qodobo kale ku xirta 36 inay jirto sabab cudurdaar ay ku maqnaan karto oo aysan xukunkaas iska dhicin aan la sahlanin marka qoraalkiisaas ku eegyahay waxaan idin rajeynayaa khayr iyo guul insha Allah Ramadaan Kariim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.